kusoo dhawo channelka Sundus Vlog aad baan usoo dhaweynayaa asxaabta cusub waxaan leeyahay kusoo dhawaada channelka muddo bilow aan kala maqnaynay channelka laakiin hadda waxaa inoo qorsheeyay waxyaabo badan oo ku cusub channelka aan idin la socodsiinayo insha Allah isbuucii hadda kadib waxaan rabaa inaan idin soo geliyo 3 video hadduu Ilaahay yiraahdo saddexda video waxay kala noqonayaan axad kasto channelkayga Sundus waxaa ka soo gali doono waxyaabo ku saabsan financial dhaqaalaha ama ha noqoto ganacsiga ama ha noqoto marketingka wixii ku saabsan aqoon ganacsi wixii aan bartay ayaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo insha Allah maalin kasta oo axad channelkayga soo gali doona maalin kasta oo sidoo kale oo jimco ah channelkayga waxaad kala socon doontaan waxyaalaha lifestyle-ka hadaan waxa soo galayso qurxinta iscaadeynta iscaylinta wixii ani wax oo ku saabsan lifestyle insha Allah kala socon doontiin hadduu Ilaahay yiraahdo maalin kasta khamiis waxaa ka soo gali doona channelka wixii ku saabsan talo markaa dhahayo waxaa soo galaayo waxyaabo badan laakiin talooyinkan waxa waaye ardayda talooyinkooda kaliya wixii ku saabsan talo arday problem haysto arday waxbarasho su'aal waxbarasho qabo arday rabo waxyaalo badan oo waxbarasho ugu gudbi lahaa ugu guuleysan lahaa waxyaalahaas oo dhan insha Allah talooyinka ardayda haysta haday wax su'aalo ah haysid barnaamijka insha Allah khamiista soo socdo noo yahay ciwaanada meesha idinku soo qoraa ku soo diri doontiin wixii aad u baahan tihiin oo su'aalaada ama talooyin ah haysiin waxa ku soo bandhigi doontiin ciwaanada aan hoos idinku soo qori doono insha Allah maalintaas khamiista channelka waxaad kala socon doontaan wixii ku saabsan talooyinka ardayda sidoo kale qisooyin marmar idinku soo gudbin doonaa marmar arday idin casuumi doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo marka hadda waxaan ku dagalayaa oo sii gudbayaa barnaamijka oo maanta aan idinku dalagalay barnaamijkan waxaan rabay shalay inaan duubo axad ahayd laakiin way ii suurtoobaysay maanta mashquulkayga aad u badnaa waxaan ognahay maanta inay jirto dhalinyaro badan oo runtii aad iyo aad u soo dadaalay waxbarashada soo dhameeyay oo shaqo raadinayo ama jecel inay maanta business sameeyaan waxaan rabaa maanta inaan toobigaas idin kala hadlo su'aalaha aad waxa igu batay oo ah dhalinyarada rabto inay wax sameeyaan business bilowdi waxa lagu gaaraa meel sare waliga hawmalay wax in meel sare leek hadda waxa arkaysa qof jaamacad ka soo baxay oo dhahayo waxaan u fadhiyaa shaqo sugaa okay shaqo sugaa shaqada soo sugay qofka haday dhahdi maanta maxaa ku fiican tahay wuxuu ku sheegaa wax muhiim ah inuu ku fiican yahay waxaasi marka waliga waxa ku fiican tahay ku dhaqaaq hadaa wax yar ku og tahay income-kaaga wax ku bilow ganacsi waa guuleysanaysaa Ilaahay inuu kula garab galaa waxaan rabaa ardayda inaan ku dhiirigeliyo inaysan sugin shaqo oo ayaga ay sameystaan shaqo fikrado dhalinyarada waxay haayaan fikraday haayaan dhalinyarada marka fikrada haysid wax ku qabo ku soo kordhi dadka waa loo baahan yahay unique baata qof walba waa unique qof walba wuxuu haaya fikrad u qaas u haaya qof walba wuxuu leeyahay maskax u qaas aqli u qaas marka hadaa wax cusub haysid waxaan ku dhihi lahaa jaamacad ag qalin jabisa shaqaha sugin noogu soo biiri fikradaada noogu soo kordhi waxaan rabaa inaan ka hadlo sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa horta dhalinyarada waxbarasho ku soo dadaashay like 4 sano 5 sano intee noqoto 6 sano qofka waxbarasho soo waday uu ku soo gubto marka waxa fiican waxa waxbarasho soo waday inaadan dhihin aniga waxaan bartay like engineering barata maanta engineering barata ama BA barata business administration ama waxa baratay kulliyada ani bartay ka soo qaad kuma baratay marka waxa baratay hadhiin waxaas inaan ku shaqeeyaan suuga aniga meel kale shaqo kale ka heshay opportunities kale ha iska luminin ka faa'iideyso ka shaqeey wax walban waa barasho sa jaamacad anaga u soo baratay waxaan u baranaysaa qofka dadka shaqada joogaad ka baranaysaa marka waxaan dhiilaa dadka dhalinyarada bilow shaqo ha noqoto waxaad soo baratay iyo waxaadan soo baran iyo fikrad adiga haysidba haday noqoto marka waxaan ku baraarujin lahaa dhalinyarada horta inay business sameystaan Allah Ilaahay ha noqoto wax ugu yar ganacsiyada hada adduunka guuleystay kambaniyada guuleystay hada fiirsid waxa qaarkood waxa jira $1 lagu bilaabay $1 qaar waxa jira $1 lagu bilaabo maantana adduunka waxay ku yaalaan $150 ay ku yaalaan marka wixii wax yar lagu bilaabo wax weyn lagu gaaraa markii dambe dhalinyarada waxaan ku baraarujin lahaa
runtii sanadkii dhaweyd 2017kii 2017 aan tagay xamar waxaan arkay runtii dhalinyaro badan jaamacada 5 sano soo dhameeyay 4 sano soo dhameeyay oo lagu leeyahay wadankii shaqo ma lahan lagu leeyahay dhalinyaro kala soo baxayso waxa la leeyahay shaqo la'aan ka jirto wadankii marka ma fiicna taa ilaahay waxa noqoto inaad $10 business ku bilow waxaad bilaabaysid insha Allah adiga oo idinku dhiirigelin lahaa in waxaad haysid maanta wax ku bilowdid biri haad islihin maanta inta waxaan wax yar waay wax ku bilaabi karaa islihin ku bilow muhiimadu waxay tahay hamigaaga iyo rajadaada inay ahaato meel aad u sareyso waa gaaraysaa marka beesiga ka bilowda hamigaaga iyo rajadaada ay tahay meel aad iyo aad u sareyso waa gaaraysaa run ahaantii waxaan kula dalin lahaa dhalinyarada qof kasta oo fikrad haayo fikradaada hadda samee iyo ilaahay aad ku abuuri kartid $5 fikradaas mise $10 tahay mise $20 wix aad haysid fikradaas ku samee waa kuuleysanaysaa insha Allah waxaan rabaa inaan 3 dalo aan siiyo dhalinyarada rabto inay fikrad mise business ay bilaabaan mise ganacsi cusub ay yagleelaan waxaan rabaa dhalinyaradaas ganacsiga cusub inay yagleelaan rajeynayso fikrada inaan ku darsado waxa haysid wax ku bilow horta wax marka ku bilowdid hamigaaga mise rajadaada meel sare ay noqoto waxa samaysanaysaa waxani hadda aad bilaabaysid ilaa xagee jeceshaa inaad ka gaartid horta sidiisa waxna ma fiicna ganacsiga hadda u bilowdid ganacsigan aan lacag ka helo aan xoogaa ku sii socdo ma soconayo laakiin ganacsiga waxa u bilowdaa for future inaad meel sare ka gaari doontid xitaa even Soomaali inuu dhaafi doono caalamka meel kasta gaari doono wax yar ha noqdo dadka caawiyo marka noqotid qofka dadka caawiyo adna qof walba muslim ku caawinayo taas marka hore muhiim waaye marka insha Allah dhalinyarada run ahaantii ardayda aad iyo aad u dhiirigelinayaa waxaan leeyahay qof kasta oo dhalinyaro ah hadii shaqo la'aan jirto wadanka hadii shaqo ma jirto adiga samee shaqo qofkan shaqada sameynayo qofkan company mise shirkad u shaqeey rabtid for example hada shirkada Google-ka mise shirkada Microsoft iyo mise shirkada noqoto qof oo adiga kula mid ah maanta sameey marka samee biri adiga shaqaale lagu noqonaya insha Allah dhamaan waa salaamaya dadka waxaan leeyahay janaalka maalin kasta axad waxa ka soo gali doona waxyaalo ku saabsan ganacsiga dhaqaalaha iyo khamiistan dalooyinka ardayda khamiistan soo socota insha Allah su'aalaha ciwaanka hoos ku soo qori doona ku soo diri doontiin maalin kasta jimcaan waxa soo gali doona waxyaalo quseeya lifestyle-ka qurxinta iscaadaynta iscaydinta wixii qurux dhan oo qusayso marka aad iyo aad baan dhalinyarada u salaamaya waxaad jeceshahay inaan ka soo hadlo hoosna ku soo qor commentiga hadaa ii haysid fikrad cusub hadaa noo haysid bar wax cusub aan ugu soo kordhin rabtid welcome oo ku soo dhaweynayna commentiga hoosna ugu soo qor insha Allah I hope inaan wax rajeynaa insha Allah inaan waxyaalo badan iga faa'iido doontiin kana raali noqda kaamirada waa ku cusbahay waxaan jeclaaday inaan waxyaalo badan idinka faa'iideeyo waxaan bartay inaan idin faa'iideeyo insha Allah waa rajeynaa inaan waxyaalo badan iga faa'iido doontiin channelkiina hadii Ilaahay yiraahdo channelka hadaa ku cusub tahay subscribe saar hadaa hore u joogtana commentiga noogu soo dhiibo adiga maxay kula tahay shaqo la'aanta ka jirta wadankeena ama dhalinyaradan sidee business u abuuran karaan sidee qof kasta fikrad haay wax u sameyn karaa commentiga hoos noogu soo qor wixii aad haysid oo kaga hadlaysid topican insha Allah aad baan idin soo dhaweynaynaa qof kasta oo channelka u haayo fikrad mise wax cusub mise sidee wax u socdaan wixii lagu soo kordhi lahaa haayo waa soo dhaweynaynaa insha Allah hadda kadibna اسبوعي 3 فيديو ay soo gali doono la soo channelka insha Allah taxana ku noqo subscribe saar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.